بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. waxaan ka soo sheekaynay geerida iyo arrimaheeda, sida ilaah subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay naf walba inuu xayaatada uga qaado. sababtu waxay tahay qofka adduunka jooga maanta ama dadka adduunka jooga waxay isugu jiraan qof daalim ah iyo qof madluum ah, qof xaqiisa la qaatay iyo qof xaq islaameed qaatay. haddii la yidhaahdo aakhira ma jirto, waxaa meesha ka imaanaya noloshu inay wax qiimo ah lahayn, waayo qofkii la dulmiyey ayaa laga yaabaa inuu adduunka ka tagay asagoo aan loo aarin. qofkii daalimka ahaa asagoon dulmigiisii laga goynin ayaa dhici karta inuu adduunka ka tegey. idan yowma alqiyaama ilaah wuxuu ugu talagalay inuu makhluuqa ku kala abaalmariyo, qof walbaa wixii uu samaystayna laga jaasiyo. sida ilaah uu yidhi: faman yacmal mihqaala darratin khayran yarah waman yacmal mihqaala darratin sharan yarah. idan taa waxay tilmaamaysaa qiyaamaha ilaahay miicaadka iyo wakhtiga uu u sameeyey inay tahay in lagu kala bixiyo makhluuqa, oo qofkii daalim ahaana dulmigiisii laga abaalmariyo, qofkii madluum ahaana wixii lagu dulmiyey inuu ilaahay jasihiisa ka siiyo subxaanahu wa tacaala. cajaladdan waxaan ku tilmaamaynaa haddana ahwaasha qiyaamaha jirta iyo dhibaatada weyn ee naga horaysa. ilaahay kitaabkiisa munazalka waxa uu ku yidhi: yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum, wardadow ilaahiina ka cabsada. yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzii waalidun can waladihi. waxaad ka cabsataan maalin waalidka uusan wiilkiisa waxba u tari karin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. yowma alqiyaama loola jeedaa laa yajzii waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay. kii la dhalayna waalidkii dhalay uu waxba u tari karin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. inna wacda allaahi xaq, ballanta ilaah uu qabtay run waaye, waa mid xaqa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ee falaa tagurrannakum alxayaatu addunyaa, noloshaan adduunka yay idin kedinin, noloshaan adduunka yay idin sirin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. walaa yagurrannakum billaahi algharuur, shaydaankan yuu idinka kedinin ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala. waxaa laga yaabaa inuu kaaga dhiga wakhtiga inuu dheer yahay, waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo toobadaada waa weli, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inuu qofku ku maaweeliyo. sidaa darteed waa arki doonaaye marka qiyaamaha la gaaro oo dadka ahlu naarka naarta loo diro, shaydaanka albaabka ayuu istaagaa inta aan cadaabka la gelin ka hor. khudbad dheer ayuu u akhrinaa baa la dhahay dadkiisa. ilaahay wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala fii suurati ibraahiim: wa qaala ashayطaanu lamaa qudiya alamr ina allaha wacadakum wacda alxaq. shaydaanku wuxuu dhahaa marka amarka la xukmiyo buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala: ilaahay waa idiin yaboohay ballanqaad xaq ah. wa wacadtukum faakhlaftukum, aniga waa idiin yaboohay waa idinku beeniyey. wamaa kaana liya calaykum min sulطaan, aniga wax xujoon idiin kaystay ma jirin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii. waa idin wacay waa isoo ajiibteen buu leeyahay,
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انتهى الدقالنا نفتنا الدقال لي هيبوراي إلى سبحانه وتعالى شيطانك فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم aniga ma ihi mid idinka idin gargaari kara idinkuna ma tihiin kuwa ani ii gargaari kara qodbada dheer markuu aqriyo ayuu ilaahay amraya dukhul iyo inay markaa cadaabka galaan sidaa darteed qiyaamahaas iyo dhibaatadeeda ayaa wixii ilaahay naga karsiiya caawa aan ka sheegi doonaa qiyaamaha marka ay soo dhawaatay ilaa wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala koonku inuu isbedeli doono ilaa wuxuu tilmaamay fa idaa bariqa albasar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ويا أيها دتك سؤالي أو وحي دهين أيانا قرمي نقولي ساعة قيامه تاسي ويدين بوضعي إلى سبحانه وتعالى waxay ku weydiinayaan buu yiri ilaah maalinta qiyaamaha ay dhacayso ee waxa tahdaa fa idaa bariqa albasar marka indhaha uu wareero oo dadka indhahooda ay awoodi waayaan inay caadi ah ay u istaajiyaan oo ay noqoto kuwo wareersan buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala fa idaa bariqa albasar wa khasafa alqamar dayaxa iyo bishana la madoobeeyo buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala وجمع الشمس والقمر ضيحا يقرح ذا لكلميو يقول الإنسان يومئذ أين المفر إنسان كمال انت وحودها انتين لو أرضاه إلى سبحانه وتعالى أين المفر مفرك إيا ماشا لآذا يمانت انتواي كلا لا وزر وزر إيا ميل لو أرضو مغنقل يلوغل مجرتبو إلى ربك يومئذ المستقر إلى حقي سالو سبنانا مالنتا إلى آية الوحكوت المامي مركا قيامها لقارو إذا الشمس كورت إن قرحت اللطوب دونبو يري إلى سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت حدقها وسوق بنا ينبو يري إله أروك كسو دادنا ينمان توضبا وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت بورها ولسعسينا بويري إلى سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت هشت مسيدك أهنا والضيعا وحالو لجيدا هشي أورك لهيد أورك المذيذ إيسو دويد ayaa la dayaca oo qof hananeeya ama ixtiraama ama dabagala ayaa markaa la waayna sababtu waxay tahay dhibaatada maalinta jirta ayaa ka weyn buu ilaahay tilmaama subxaanahu wa tacaala waxa la soo kulminaa wuxuushta iyo baxalaha oo dhan buu yiri ilaa subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan waxay tilmaamayaan qiyaamaha imaashaheeda iyo sida koonka uu noqonayo ilaa asagoo sii tilmaamaya wuxuu yiri idaa zulzilat al-ardu zilzaalaha أرلها هدي قرير تقرير كذا وأخرجت الأرض أثقالها أي صوبح سوح الله لوحي عليس أو كل حجري وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وإنسان كؤير هذا محاد عيمانتا ما لها أي ما أي شيء ثابت لها أرلها سان ما هاجر إما حاكد عيب إليهم بضي إلى سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ما لنتاس أخبار تذي كهد ليس أرلضا ويورمي سابو يري إلى سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها إلهي أيان أوحي ذي سبحانه وتعالى إلي هذا الشيء متقانين هذا الكذب يري النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب توحيدهن الله ورسوله أعلم إلهي رسولك سأياؤك مرك النبي وحي يري أخبار تيذا أي كهد ليس وحواي قف والبا وحي كم مرقاتك عيسى وحي أكرك يذا كسميي يوم فلان إيا مال هبل إيا ساعد هبل وحاس أيو يسميي ساسي لذا هيبوطي إلى سبحانه وتعالى إذا قيامها مرك أي سودا واتواي أرمها صودا مرك أي دعايان بونك الله أفوفا يا مركي دنبه ملك بونك أفوفا يبودا النبي صلى الله عليه وسلم مروك هذاي ددك أدونك ما أنت جوغ سيء تمتعان وأي أراحي سنايان ملكينا أفك أوصاري بونك أوسوغا يوقتك إلى أمر لها مركبونك اللي يري إلى وحكوت المام سبحانه وتعالى ونفق في الصور بونك أيا ليري أما ليرنا
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله waxaa dhintay oo argagax u dhintay wax allaala wixii adduunka joogay oo arla ku sugnaa samana ku sugnaa waa bunka qiyaamo ee ugu horeeya ee markaa la yeerinaayo makhluuqa in allaala intii dhinnayd ayaa ku dhimanayo kulli markii ay dhintaan fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaa allah waxaa loola jeedaa baa la yidhi malakulmowdka iyo malaggaa buunka yeerinaayo iyo jibriil ayaguna waxay ku dhimanayaan labada nafqa inta u dhaxayso waayo wax adduunka herayaa ma jiro saan xalay soo tilmaannay kulla shayin haalikun ilaa wajha kullu man calayha faan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلهي كلي ساهرة سبحانه وتعالى وح الله لوحي إله نفقه قليو مخلوقا أي أدونك لقوينا لما هو بابا آيان حدقه وصوقبتين ضيحي والد مذوبيي قرح ذي دباتا لقارسيي أرمها صدنبو إلهي الشيخ سبحانه وتعالى marka nafqada ay dhacdo oo lagu wada dhinto oo dadko dhan ay wada dhinsan yihiin ayaa waxaa la yeerinaa haddana buunka labaad nebigu wuxuu yidhi 40 ayaa u dhaxaysa labada buun yeeritaankooda abaa hurayra xadiiska laga wariyaa la weydiiyey 40 sano miyaabaa la yidhi abaytu buu yidhi ma ogi 40 maalmood miyaa ma ogi buu yidhi 40 bil miyaabaa la yidhi ma ogi ayuu yidhi laakiin waxaa loo badan yahay in 40 sano ay u dhaxaysa labada buun yeeritaankooda wakhtigaa marka la gaaro ayaa haddana waxaa la yeerinaa buunkii kale ilaa asagoo tilmaamaya muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala rasuulka sala allahu calayhi wasalam lana sabar gelinayo oo loo tilmaamayo dadka inuu isaga sabro sug ayaa la yidhi oo ka jeeso oo waxaad sugtaa yowma yadcu daaci ilaa shayin nukur maalin daaciga uu ugu wici doono shay la inkiro buu yidhi oo qiyaamaha markaa ah buunkii labaad ayaa la yeeriyey buunkaa labaad marka la yeeriyo dadka oo dhan ayaa ku soo dhalanayo oo ku soo baxaayo waa maalintii xaqa ahayd sida ilaahay uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala dadku ma sugayaan buu yidhi ilaah ilaa sayxatan waaxida hal qaylo keliya maahane ta'khuduhum wahum yakhasimuun waxay qabanaysaa weli ayagoo doodaayo rasuulku markuu tilmaamayay saacadda qiyaama dhicitaankeedu wuxuu ku tilmaamay maalin inay tahay dadku ay suuqa joogaan ay wax ku kala gadanayaan laba qofood ayagoo midkaa maradiisii qaatay intuusan weli duubin kan kalena uu dhiibin lacagtii ayay saacaddii qiyaamo ku dhacaysaa nin hashiisii soo maashay caanaha soo wata intuusan afkiisa gaarsiinin ayay saacadda qiyaamo ku dhacaysaa ta'khuduhum wahum yakhsimuun falaa yastatiicuuna tawsiya walaa ilaa ahlihim yarjicuun ma awoodi karaan inay dardaarmaan buu yidhi ilaah iyo inay ehelkooda u soo noqdaan dhibaatadaas ayaa dhacaysa oo ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala haddaba marka dhibaatada ay dhacdo nafkhatu thaaniya la gaaro oo buunkii labaad la afuufo dadkuna ay ka soo wada baxaan qubuurta ilaah subxaanahu wa tacaala asagoo tilmaamaya uu yidhi waxaad sugtaa maalin daacigu ugu wacaya ilaa shayin nukur khushacan absaaruhum yakhrujuuna min alajdaad kaannahum jaraadun muntashir dadku way khushuucsan yihiin buu dhahay ilaah maalinta waxay ka soo baxayaan qubuurta waxaad u malaysaa jaraad iyo ayax muntashir ah oo faafaaya ayax ayaad u malaysaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala aayad kale ilaah wuxuu ku yidhi alqaarica ma alqaarica wamaa adraaka ma alqaarica qaarica waa isim asmaa'da qiyaamo ka mid ah tii wax garaacaysay oo mashaakilkeeda iyo dhibkeeda dadka ku garaacda ayaa qaarica la yidhaahdaa waa qiyaamaha ma alqaarica qaaricadu maxay tahay wamaa adraaka ma alqaarica maxaanu ku ogeysiiyey waxay tahay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala yowma yakuunu nnaasu kalfaraashi almabhuuth waa maalin dadku ay noqonayaan sidii faraash iyo baalaley ama koronkaro la kala firdhiyey oo kale faraashka waxaa loola jeedaa markuu roobka yimaado bahalka nalka ku dhegdhega iyo kaasoo la qabtay oo la kala firdhiyo kale noqonayaan buu dhahay ilaahay watakuunu aljibaalu kalcixni almanfuush buuruhu waxay noqonayaan suuf la garaacay oo la jilciyey oo kale saas ayuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala
qiyaamaha maruu ilaahay tilmaamay muxuu yidhi inna yowma alfasli kaana miiqaat, maalinta qiyaamo ee la kala baxaayo waa maalin miiqaat ahoo ballan u saaxiib ah. fasli waxaa loogu bixiyey daalimkii iyo madluumkiyaa la kala bixinaa, wiil iyo aabbihiis oo maanta isku dhex jira oo labadooda xaq aan kala raacin iyo mid raacaa la kala bixinaa, wax allaala wixii xaq diiday iyo wixii xaq raacaa la kala bixinaa. miiqaat waayo buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ومالين بونك قيام الليرينايو أو إذنكو كوح كوحة إيماني سامبوير إلى سبحانه وتعالى. فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب، سماوات كلا فرفرا إردأوا كلا نقنيا، وسيرت الجبال فكانت سراب، وحل سعود سينا بورها سراب يدلنتاد يوح أنجرين أو كلا نقنيا بوري إلى سبحانه وتعالى. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصاد، جهنمنا مالنتا عمري قل أي الصاحب تهي أو وحي سوغيسا ددك طاغينتا إحد قدمي بوضاي إلى سبحانه وتعالى. qiyaamaha marka boonka la yeeriya dadka qubuurtay ka soo baxayaan, laba hab ayaa loo soo kala bixi doonaa. habka koowaad waa dadka muttaqiinta ilaahay uu yidhi yowma naxshuru almuttaqiina ila arraxmaani wafdan. qolada labaad waa mujrimiinta, wanasuuqu almujrimiina ilaa jahannama wirda. saasaa loo soo kala baxa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. dadka muttaqiinta ah waa la soo bixinaa, qabrigaa laga soo bixinaa, allaha raxmaanka xaggiisaa loo wadaa ayagoo wafdi ah oo wufuud oo kale loo ixtiraamaayo. waad aragtay wafdiyaalka adduunka sida maanta loo ikraamo oo loo maamuso oo loo sharifo. ka waran rabbulciza qofkii maalintaa wafdi u ah, seed u malayn kartaa ama aad suuraysan kartaa in loo ixtiraami doono ama loo qadarin doono ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaa dadka wufuudda u ah. yowma naxshuru almuttaqiin ila arraxmaani wafdan wanasuuqu almujrimiin. dadkii mujrimiintoo dembiilayaasha ayaan soo quminaynaa buu dhahay ilaa jahannama wirda. wirdiga waxaa loola jeedaa ayagoo ooman oo dhulka lagu jiidaayo ayaa loo wadaa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala dhanka jahannamo. dadka mujrimiintana xaaladoodaa saas ah. wajaa'at kullu nafsin macahaa saa'iqun wa shahiid. naf kastaa waa la keenaa, micigeeda saa'iq ayaa ah, mid kaxeeya oo soo wada iyo mid shahiid ahoo ku markhaati kacaya buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. haddaba marka sidaa loo soo kala dhasho oo loo soo wada baxo, waxaa la imaanayaa macsharka iyo goobtii qiyaamaha ee ilaah dadku ku kala xukmin lahaa subxaanahu wa tacaala. maalinta marka meesha laysugu yimaadaa qoraxda la soo dhowaynaa, qadar mayl ayaa la keenaa buu dhahay nebiga. dadku waa dhididayaan buu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, ilaa 70 dhudhun dhididkooda uu kor u galo, hoos u galo dhulka. qof walbaa biqadari camalihi ayuu la ekaanaa. dad ayaad arkaysaa anqawyaalka iyo lugaha uu u jooga dhididkooda, dadaad arkaysaa jilbaha uu u imaanayo, xaqwiga iyo meesha macawista ama suunka laga xirto daduu u joogaa. dadna waa liijaaminaa buu dhahay nebiga oo ayagoo dhan buu markaa qarinaa. qoraxda marka maalintaasaa loo soo dhoweeyo, 7 qofood ayaa carshiga raxmaankaa la harsiinayaa buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. 7 yadilluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dillah. maalin hoos uu jirin ilaa hooska ilaahay maahane subxaanahu wa tacaala. 7 qofood ayaa allaha raxmaankaa carshigiisa hoostiisa kursi loo dhigaa oo ka fiirsanaya oo dhibkaasoo dhan aan qabin. 7 rasuulka midka koowaad wuxuu yidhi al-imaamun caadil, madaxweyne toosan oo caadil ah oo diin wax ku maamula, aan qabiyaalad iyo eex ku soconin, aan xumaato samaynin, oo qawaaniin iyo sharci iyo waxyaaba dagaalo ay dejiyeen aan dadka ku xukminin ee diinka alla wax ku xukmiyey. imaam caadil ah ayuu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. carshiga raxmaanka hoostiisuu harsanaa maalinta qoraxda la soo dhoweeyo.
madaxweyne kasta waxaa loogu talagalay inuu diinka wax ku maamulo oo xaqa iyo daacada ilaah uu socodsiiyo oo ilaahay uu ka cabsado subxaanahu wa tacaala cadaalad uu ku kala maamulo dadka. waayo maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabar qureysheed wax xadday. markay wax xadday ayaa nebiga la yidhi yaa la hadlaya sala allahu calayhi wasalam. gabartan qureeshiyad waaye oo dadka reer maqsuumiya ka dhalatoo qabiilooyinka ugu waaweyn ah, gacanta lagama goy karee nebiga ha lala soo hadla salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. nebiga qof loo diri karaa ma jira ayaa la yidhi ilaa usaama ibnu zayd maahane, oo nebigu uu aad u jecel yahay salawaatullaahi wasalaamun calayh, warna uusan ku soo celinaynin, asaga ha loo diro. usaamaa loo diray, kama fiirsanin radia allaahu canhu. rasuulka ayuu u yimid markaasuu dhaha yaa rasuul allah, faadimo waxbay xadday, ha layska cafiye, gabar maqsuumi ah oo qurayshiyad waaye, gacanta ma laga goyn karo. xanaaqa maalintaa nebiga uu xanaaqay weligiis ma xanaaqin salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. usaama adiga maa maanta keentay buu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaahi tacaala, xad xuduudaha ilaahay ka mida maa difaacaysaa usaamow maanta? waa ninkuu dadka u jeclaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. saas ma loo fiirinin. nebiga mimbarka ayuu ku istaagay, markaasuu ummadda u qudbeeyey oo yidhi dadkii adinka idinka horreeyey waxaa halaagay annahum kaanuu waxay ahaayeen idaa sariqa fiihim daciif, dadka daciif ducafada ah markay dembi galaan aqaamuu calayhi xadkay ka oogi jireen. dadka asharaafta ah markay dembi sameeyaanna way cafin jireen. dadkii hore arrintaasaa halaagtay. haddana waxaad ii sheegteen in gabadha maqsuumiyadda la cafiyo, ayuu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. dadkii ugu horreeyey arrintaas ayaa halaagtay. wa aymullah, baaqi ahaashada ilaahayaan ku dhaartuu dhahay nebiga, wallaahi low sariqat faadima binti muxammed laqadactu yaddaha. ta waxadday maba xadina, hadday faadimo binti rasuul ahaan lahayd oo gabartayda ah, gacantanka goy lahaa buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. gacantanka goy lahaa, hebel ha loo taga iyo saan ha la yeela iyo meesha ma taalo. usaamana waxaa la yidhi atashfacu fii xaddin min xuduud illaahi tacaala yaa usaama. usaamo maanta maa difaacday? wax ilaahay ha la sameeye yidhi ha la dhaafa maa maanta tiri buu dhahay salawaatullaahi wasalaamun calayh. madaxdu hadday sidaa noqdaan buu ilaahay carshiga raxmaanka hoostiisa kursi u dhigaa. laakiin sida ay maanta ku socdaan hadday noqdaan, alla agtiisa wanaag kuma laha. dadka umarada ah ama madaxda ah saddex ayaa loo qaybiyaa, laba waa ahlu naar, midna waa ahlu janna buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. labada ahlu naarka waa mid xaq aan baranin, diin aan aqaanin, oo yidhi dadkaan xukminaa. ninka noocaasa xataa hadduu diinka islaamka waafaqo oo sida shareecada u waafaqo iska waafaqo aada allay dhacdo, waa ahlu naar. sababtu waxay tahay adigoon diin aqoonin inaad wax xukmiso waa shay mamnuucahoo laga fiican yahay. ka labaad waa nin xaq barto, xaqa yaqaano, xaqii ka leexday. ninka noocaasa waa ahlu naar. ninka saddexaad waa qof diinka ilaahay bartay oo ku camal falay, ummaddana ku xukmiyey. ninka noocaasa keliya ayaa ahlu janno markaa ah. sidaa darteed buu rasuulku yidhi innakum sataxrisuuna alimaara, madaxtinimaad ku dadaalaysiin maanta, wasatakuunu nadaama yowma alqiyaama, maalinta aakhira shalay bay idiin noqon doontaa buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. maxaa kuu geeyey kaa gaari doontaa qiyaamaha marka la gaaro. haddaba qofka muslimka waa inuu sidaaya ogaadaa oo qofka ugu horaysa uu yahay imaamun caadil. ka labaad rasuulku wuxuu yidhi washaabun nasha'a fii cibaadati illaah, waa shaab ku barbaaraya ilaahay diinkiisii cibaadadiisa subxaanahu wa tacaala. kalaam iyo fisqi, xumaan iyo xaaraam, wax ilaahay diiday aan ku barbaaraynin ee taaco ilaah iyo diin alla ku barbaaraya, waa qofka labaad buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. washaabun nasha'a fii cibaadati illaah, dhallinyaro, wiil ha ahaado gabar ha ahaato, ilaahay taacadiisa ku barbaaray oo ku koray oo ku weynaaday, oo ilaahay diinkiisa maahana xumaan aan lagu karaynin. ka saddexaad wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam warajulun qalbahu mucallaqun bilmasaajid xataa yacuudu ilayh, waa nin qalbigiisa masaajidkuu ku xihan yahay. qalbigiisaa masaajidka ku xihan. markuu subax ku dugtuu duhurku rabaa inuu aado, duhurku markuu ku dugtuu rabaa casirka inuu aado. masaajidada ilaahay ayuu qalbigiisa ku xihan yahay. inuu shaqo xalaaloo nadiifa aadaayo, inuu ehelkiisa soo aadaayo, inuu meelo fiican aadaayo maahane si
kale aan masaajidka u faaruqaynin. innamaa yucamaru masaajid allah man aamana biاllahi walyawmi alaakhir. masaajid ilaah waxaa camiro mar kasta laga dhex arkaa qof ilaahay aaminsan subxaanahu wa tacaala. idaa ra'aytum rajul yatacaahad bilmasaajid fashhaduu lahu biliimaan buu dhahay nebiga. haddaad aragtaan nin masaajid ku noqnoqonaayo iimaan ugu markhaati kaca. ninka noocaasa nin iimaan leh waaye. markaasuu aayaddaas akhriyey nebiga. marka qofka saddexaad waa rajul qalbigiisa mucallaqka ah oo ku xihan masaajidada ilaa uu ka soo noqdo haddana uu rabo mar walba inuu masaajidka aado. qofka afaraad buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ee carshiga raxmaankaa loo harinayo warajulaani taxaabbaa fi llah ijtamaca calayhi watafaruqa calayh. waa laba qofood oo alla dartii isku jeclaatay subxaanahu wa tacaala. inay wax dhacaan iskuma jeclaanin, inay meel afgembiyaan ayuu qabsadaan iskuma jeclaanin, qabyaalad kale iskuma keenin, alla dartiisay isku jeclaadeen buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. ijtamaca calayhi watafaruqa calayh. alla dartiisay isugu yimaadaan, alla dartiisay ku kala tagaan. waa qofka afaraada ilaah uu harinayo subxaanahu wa tacaala carshigiisa. qof allaala qofka ilaah dartii isku jeclaadaa wanaag ayaa la siinaa. qiyaamaha marka la gaaro ilaah wuxuu leeyay ayna mutaxaabbiina fiya, away kuwa dartay isku jeclaan jiray. ayna mutasaawaruuna fiya, away kuwa dartay isku ziyaaran jiray. ayna mutajaalisuuna fiya, away kuwa dartay iskula fadhiisan jiray. istaaga oo waxaad leedihiin manaabir iyo jaranjarooyin dahab ah. jannadana waxaa laga siiyaa qayb dadka xaaladoodu ay sidaa tahay. maca daalika ayay dadkaas waxyaabaha la siinaayo shuhadada iyo ambiyaalka ma jeersanaysoo dhahayso yaa iskale wanaagan, nebiyaal maa iskale mayaa la leeyahay. dad ani dartay iskula fadhiisan jiray oo dartay isugu imaan jiray oo dartay isku xiriirin jiray. kama dhaxaysa waxyaabo kale, iskuma keenin qabyaalad, ma isu keenin xisaabtan iyo xoolo ka dhexeeyey, sharka ma ahayn, alla dartiisay isugu imaan jireen subxaanahu wa tacaala. qofka shanaad ee loo harinayo carshiga raxmaanka hoostiisa waxa waaye buu dhahay nebiga warajulun dacat imra'atin daata munsabin wa jamaal. ninay naag u wacatay qurux iyo qabiil fiican u saaxiib ah, damacday inuu ka sinaysto oo faqaala innii akhaafu rabba alcaalamiin. aniga caalamiinta rabbigoodaan ka cabsanayaa yidhi. ninkaa waaye buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. innii akhaafu allah, ani ilaahayaan ka cabsana oo caalamiinta rabbigeeda ah. waayo qof allaala qofkii ilaahay ka cabsada ilaahay wanaag ayuu siiya subxaanahu wa tacaala. yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum wakhshaw yowman, waa meesha ilaah uu ka yidhi. waa qof ilaah subxaanahu wa tacaala xasuustay asaga oo raba ama rabtay naagta inay xumaan ku samayso oo yidhi faqaala innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin. qofka lixaad oo carshiga raxmaanka loo harinayo nasiibka u yeeshay maalintaa waxa waaye buu dhahay nebiga warajulun tasaddaqa bisadaqatin. nin sadaqa bixiyey fa akhfa'ahaa qariyey xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh. gacantiisa bidixda waxay ogaan weysay waxa midigtu ay bixinaysa buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. macnaha waxaa loola jeedaa haddii la qadaro dhinaciisa bidixda in qof la fadhiisiiyo ma oga waxa ninka uu bixiyey. sadaqada in la qariyo ayaa qiimo badan. haddii la muujiyo mashaakil kuma sugna haddaan istustus loola jeedin. in tubdu sadaqaat fa nicmaa hiya wain tukhfuuha wa tu'tuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum buu dhahay ilaah. sadaqada haddaad muujisaan nimcay leedahay, haddaad qarisaan ayaa ka khayr badan oo ka wanaag badan. sidaa darteed qofka lixaad ee nasiibka u yeeshay waa qofkaa sadaqada bixiyey. qofka toddobaad ee ugu dambeeya ee carshiga raxmaanka loo harinayo waxa waaye warajulun dakara allahu khaaliyan. waa qof asagoo keligiis meel ku jira oo khalwa ku jira ilaahay xasuustay fafaadat caynaah, oo indhihiisay biyo ka soo qubteen buu dhahay salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh. geeri looma soo sheegin, dad ka dhintay looma sheegin, hanti ka baaba'day ma loo soo sheegin. ilaahayga khaaliqa ah ee weynka ayuu xasuustay, cadaabkiisuu xasuustay, indhihiisaa biyo ka soo qubtay buu dhahay salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh fafaadat caynaah. toddobadaa qofood ayaa carshiga raxmaanka kuraas loo dhigay oo ka badbaaday dhibaatada iyo howlka maalintaa jirta. haddaba dhibaatada maalintaa jirta aad iyo aad bay u dhibaato badan tahay.
إلهي سبحانه وتعالى مالنتا أمد مركوسا إسوغو كينو أولين إي آخرين أيالا كينو ماشا الله يسوغو يمد dadkoo dhan way qaawan yihiin laqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awwala marra markii horesaan idin khalaqnay idinkoo oo kala ah ayaan idin soo celinaynaa buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala nin walbo qiyaamaha la keeno dhar ma wato ma gudna kaba ma qabo sidaa ayuu ilaah ku soo jamcinaa subxaanahu wa tacaala caaisha waxay tiri radia allahu canha yaa rasuula allah alrijaal waannisaa yanduru بعضهم على بعض رجع يضمر كقاركون قارك كلام فيرنا يميا نبي آد يقول يا صلوات الله وسلامه عليه يا عائشة الأمر أشد من ذلك لبعضنا مشت على كأذك أيوه صلى الله عليه وسلم لنا على بعض أيام كنا مسترينا عجلة أنت قيد تقدم المحاضرة وبالله توفيق يا عائشة الأمر أشد من ذلك بوضع النبي صلى الله عليه وسلم أرنت أما دبعت مالنت أجرت أيا كأذك أو كعلس إن غفك مالنت أرنت أو ضمعه وماشي إله كيري ووجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة على شدباتين كفرها بضن ayaa dadku kala qabsan doono qiyaamaha marka la gaaro fa idaa jaa'at as-saaqa saaqadu haddii ay timaado waa maalin yafiru al-mar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughniihi qof kasta xaalad asaga ku filan ayaa haysata buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala ma awoodi kara mana damci karo qof kaloo dhinaciisa taagan inuu markaa fiiriyo ama la hadlo waayo wiilka ayaa wuxuu ka orday walaalkiis hooyadiis ayuu ka cararay saaxiibadiis ayuu ka orday sida ilaah uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala waa maalin yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi hooyadiis iyo aabiis uu ka orday buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala saaxiibadiisii iyo ilmihiisii ayuu ka orday hadday xaaladdu sidaa tahay yaa waayo qofka kale oo qof kale aadi kara ama fiirinaya ma jirto aqrabulqaraaba ayaa laga orday maalintaa haddaba dadka sidaa ayaa loo soo jamcinaa buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh qof kasta asagoo curaad ah oo qaawan oon wax wadanin ayaa la keenaa nebi ibraahim ayaa ugu horeeya buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh axadka ugu horeeya la marashaynaya maalinta qiyaamaha haddaba qiyaamaha ayadoo xaaladdu ay sidaa tahay oo dadku rafaadka ay ku jiraan ayaa waxaa la amrayaa jahannamo in meesha la keeno rasuulku wuxuu dhahay jahannamo ayaa la keenayaa ayadoo 70,000 oo hoggaan ku xiran halkii zimaam ama hoggaanna 70,000 oo malag uu jiidaayo إلهي سبحانه وتعالى مروا تلمامي أرنتا محيري وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى ما لنتا جهنم لكينا بوضعي إلى سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ما لنتاس أي إنسانك إسحسوسنا وأنى له ذكرى maxay waana qaadasho iyo xusuusba u tarisaa buu dhahay subxaanahu wa tacaala maalintaa maalin la waana qaata lama joogo maalintaa maalin qofku haddaa camal fiican samaysana uu dhaho lama joogo wa annaa lahu dikraa wax waana qaadashay anfacayso mala buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala jahannama marka meeshaa la keeno dhimbilaha iyo dhuxulaha ka soo baxaya ayuu ilaahay tilmaamay innahaa tarmii bishararin kalqasr waxay ridaysaa dhimbilo halkii dhimbilba kal qasri oo kala ah qowladan aan ku jirna leeg buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala kaannahu jimaalatun sufr waxaad u malaysaa ratiya geel ah oo booran ama gudguduudan dhuxulaha markaa ka soo baxaya jahannamo ayaa meeshaa la keenay dadku aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin waxay ku jiraan xiira iyo wareer dahshi iyo dhibaato ayaa ku sugan qof kastaa dhibaato ayuu maalintaa haystaa dadkii boqornimadii awoodda sheeganayay ayaa maanta aamusan wax la maqlayaa ma jira buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزة لما قلما إلا عدق مذيد ما هني شنقرت لقت ما هني وحكلوا لما قلا يا مجرب رأي إلى سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وحور ما يهضلا يا مجرى مالنتا إلا غبكو إلهي فصح ماهن سبحانه وتعالى وقال صوابا كاسنا هذا التوصن ماهن وحكلا أوكو هضلا يا مجرى dadka dhibaatada si ku jiraan dadku meeshay wada taagan yihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wa allaha qahaarka ah wuxuu leeyahay limanil mulku al-yawm maanta ya boqortinimo ay u sugnaatay limanil mulku al-yawm ayu ilaah ku celcelina subhanahu wa ta'ala wax u jawaaba marka uu waayo ayu leeyahay lillahi al-wahid al-qahhar ilaahay kaligiis ayaa maanta maamulka iyo boqortinimada ay u sugnaatay subhanahu wa ta'ala maanta waxa awooda iskale waa ilaahay maanta waxa boqortinimada iskale waa ilaahay ana jabbar ayna aljabbaruna fil ard ana almutakabbir bu ilaahay subhanahu wa ta'ala ana mutakabbir ayna almutakabbirun awadadki adduunka isku weynaysiin jiray awadadki isku weynaysiin jiray adduunka ayagoo daciifin oo baalka neeca ay ka culus tahay ayaa la keenayaa maalinta qiyaamaha dadku markay rafaadka iyo dhibaatada ku sugan yihiin ahad hadlaya uusan markaa jirin ayaa waxa dhacaysa inay dadku gargaar weydiisanayaan yawmal qiyaama shafaaca ay weydiisanayaan oo waxay leeyihiin war dhibaatadan maanta na haysata waa naga tanbadisay bal qof ilaah agtiisa nooga shafaaca aan raadino mar leehana la kala xukmiya xataa dadku gobol waxay ka gaaraysaa naartaba hal la geliye in meesha xataa markaa laga wado dadku way soo raacayaan dhamaantood waxay u iimaanayaan baa la yiri nabi aadam calayhi salaam waxay leeyihiin aadam oo anta abal bashar basharkoo dhan ayaad aabba u ahayd ilaahay ayaa gacantiisa kugu qalqay ruuxdiisa ayuu kugu afuufay malaa'igta ayaa la amray inay ku sujuudo fadli iyo wanaag iyo qiimo ayaad leedahay waad u jeedaa rafaadkii dhibaatada maanta na haysato ilaahay agtiisa maanta nooga shafaac garaadadaada wax aan ku helno ilaahay noogu tag subhanahu wa ta'ala aadam wuxuu leeyahay xanaaqa ilaahay maanta uu xanaaqi weligiis ma xanaaqin mana xanaaqi doono aniga maanta ilaah waji aan ku hortaga marihi subhanahu wa ta'ala wallahi geed ha cunin leeyire ayaan cunay kiiskaas ayaa meel ii yaala maanta waxaan ilaah kula hortaga malaha i'madu ila ghayri warqafan ani ahayn aada qofaan ani ahayn raadiya nafsi ayuu leeyahay nabi aadam calayhi salaam waa qofku ilaahay doortay subhanahu wa ta'ala wanaaga iyo qiimaha la siiyey yawm alqiyaama waxay ka gaaraysaa inuu yiraahdo nafsi nafsadeyda ilaahay maanta ha ibixiyo ahad kala ma xambaaran karo aniga ilaahay wajigiisa waxaan ku hortaga malihi ilaahay arintaha iyo cafiya maante qofaan ani ahayn raadsada dadku way soo baxayaan wali wuxuu u soo tilmaamayaa nabi nuux calayhi salaam nabi nuux ay dadku u iimaanayaan waxay leeyihiin yaa nuux anta awwalur rusul rusulkii ugu horeeyo adduunka loo soo diro qoom gaala loo diray ayaa tahay samaaka allah abdan shakuur adoon shukrin badan buu ilaah kugu magacaabay kun sano ayaad qoomkaaga wacdisay ilaa 50 caam ilaah agtiisa wanaag ayaad ku leedahay war maanta dhibaatadana haysata ma u jeedido nuuxow rafaadkii mashaakilkan ku sugannahay ma u jeedid miya jahannama dhinacayna inay tahay ma u jeedid miya qoraxda in loo soo dhaweeyay ma u jeedid miya ishfac lana ila rabbik ilaahaga nooga shafaac maanta dadka meesha ha laga kala xukmiyo ee ilaahay markaa noogu tag nabi kasta dacwad ayuu lahaa buu yiri dacwadeedii fursadeyda qoomkeyga ayaan ku habaaray waa markuu yiri rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayyar ilaahayow halgal adduunka ha uga tagin maanta waxaan ilaah kula hortaga malihi i'madu ila ghayri nafsi nafsadeyda maanta allah ibixiye qofaan ani ahayn aada
icmaduu ilaa ibraahiim war nebi ibraahim aada waayo waa saaxiibkii iyo khaliilkii iyo wadaygii ilaah subxaanahu wa tacaala dadkoo dhan way soo baxayaan waxaa loo imaanaa nebi ibraahim calayhi salaam waxay leeyihiin ibraahiimow waxaa tahay qofkuu ilaahay doortay ilaahay ayaa saaxiib kaa dhigtay war ilaahay maanta nooga shafeec ilaahay maanta agtaada ama garaadadaada wax aan ku helno war wejigaaga maanta wax aan ku helnee ilaahay u tag rafaad iyo dhibaato iyo mashaakil ayaana saaran makhluuqa meesha ha laga kala xukmiyo dadku waa dhididayaan rafaad iyo dhibaataa ku sugan maca daalika ayuu leeyahay war ilaahay aniga saaxiib ayuu iga dhigtay laakiin 3 been ayaan sheegay intaan adduunka joogay maanta ilaahay hortiisa ma tegi kari ana wa ana khaliilun min waraa'i waraa midka ugu dambeeyaan ka sii dambeeya ayuu leeyahay nebi ibraahim calayhi salaam war qofaan ani ahayn raadsada 3 beenuu sheegayna waa mar xaaskiisii ay la socoto malik jabbaar ah oo yidhi waa walaashay marna waa markuu yidhi asnaamtii markii la jajabiyey bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun marna waa markuu yidhi innii saqiim 3duna wax been ah ma ahee waa shay ayagu uu wax ku tusaayey maanta anigu ilaahay hortiisa ma tegi kari waxaan alla ku hortaga melihi war qofaan ani ahayn aada dadkoo dhan anaa ka dambeeya baxa ayuu leeyahay nebi ibraahim calayhi salaam icmaduu ilaa hayrii qofaan ani ahayn u qasta oo aada icmaduu ilaa muusa nebi muuse u taga calayhi salaam asaga ayaa kaliimkii ilaahay la warramay ah subxaanahu wa tacaala ummadoo dhan way soo wada ordayaan waxay u imaanayaan nebi muuse calayhi salaam muusoo mashaakilkana haysta ma u jeedid miyaa war rabbigaaga xaggiisa nooga shafeec maanta dhibaato iyo kurba ayaa nagu badatay dhibkii iyo rafaadkii maanta waxaanan xamili karin ayuu gaaray ee ilaahay agtiisa nooga shafeec maanta ayay leeyihiin nebi muuse wuxuu leeyahay nafsii nafsii nafteyda ilaahay ha i badbaadiya maanta waayo anigaba naf dilkeeda aan lay amrin ayaan dilay ilaahay waxaan ku hortaga melihi war qofaan ani ahayn aada icmaduu ilaa ciisa calayhi salaam nebi ciise u taga ayuu leeyahay calayhi salaam nebi ciisey u imaanayaan aabbala-aan ayuu rabbi ku khalqay dadka ayaad la hadashay adoon hadal gaarin filmahdi wa kahal waxaad jira indhala'aanta ku dhashaad daawayn jirtay baraska iyo mashaakilkaad daawayn jirtay waxa dhintay ayaad alla dartii ku noolayn jirtay ama ilaahay idinkii intaasoo dhan ayuu ilaah kuu sameeyey sharaftaada maanta wax aan ku helno ee ilaahay nagala hadal ma noo jeedid miyaa ciisow dhibkii rafaadkana haysta mashaakilkii dhibka aan ku jirna ma u jeedid miyaa icmaduu ilaa hayri ayuu leeyahay nebi ciise calayhi salaam anigaba ani iyo hooyaday ayaa nala caabudoo ilaahya nala ka dhigtay kiiskaas ayaa meel ii yaala ilaahay waxaan ku hortaga melihi war qofaan ani ahayn aada icmaduu ilaa muxammadin sala allahu calayhi wasalam war nebi moxamed u taga asaga ayaa khaatimuulambiyaa ahaaye nebigay u imaanayaan salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh arrintii ayay ula socodsiinayaan nebigaa soo raacaya salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh isla markii inuu simanka qabsada dhihi maayo aaway ilaahay dadka meeshaha laga kala wado waayo shafaaca ma jiro ilaa min bacdi idnih ilaahay idinkiisa ka bacdi maahane nebiga suu u soo socdo carshiga raxmaanka hoostiisa ayuu sujuud la dhacaa cabaar ayuu sujuudsanaana ilaahay ayaan ammaanayaa buu yidhi waxaan weligiis lagu ammaanin cabaar markuu ilaah iga aamuso sujuudda la i dhaafo ayuu ilaah leeyahay yaa muxamed irfac ra'sak maxamedoo madaxaaga kor u soo qaad sal tucti weydiisa waa lagu siinaa washfac tushafac shafeeca dalab waa lagaa shafeeca aqbalaa markaasuu leeyahay yaa rabbi ummatii yaa rabbi ummatii ilaahayow ummadda meesha ha laga kala xugmiyo ilaahayow ummadda meesha ha laga bixiyo sidaa ayuu leeyahay salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh markaas ayaa waxaa bilaabanayso in siraadkii la gudbo oo jahannamo korkeeda la yeelo
إلهي سبحانه وتعالى نف والبوح بلن أغقاضي إنو جهنم كركي ذمرته وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا نفجرتا مجرتو إلا وارد واي جهنم كركي أروري سابو رهي آيادا مركي سودكتي أصحابتا كل ويوذا أويين كبعد أيو إلى سودجيي ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا إن الله لا أنت إله كعبسة وقد بلينا ظالمين تأيقوا جلبها كفف ليا أيام ميش اللوغة تقيا أبو رهي إلى سبحانه وتعالى إذا صراطك لكينا صراطك جهنم كركي إذا أيا لسارا ومدى وحال أمر يا إني قذبتو قف الله لقفك مالنتا قدبا إلهي وناك أيوسينا سبحانه وتعالى رسولك وحوده صلى الله عليه وسلم صراطك مرك جهنم الله يالو مالنتا أحد حضلا يا مجرى إلا رسوش ماهنه وكلام الرسل رب سلم ويا رسوش هذا الكوضنا dadkii dhihi jiray anagu awliye ayaa noo waxtaraysa dadkii dhihi jiray anagu haddaan dariiqi hebel ka tirsannahay jannada meeshaan doonaan nala ka gelinaa dadkii dhihi jiray anagu waxaana loo ballanqaaday jannada meeshaan doonna iyo dooqeena inaan ka qaadano xaaladda noocaasa waad u jeedaa waxaa hadlaaya rusushii waxay ku hadleen rabbi sallam ilaahowna badbaadi ilaahayow dhibka naga kori sidaa ayay yireen buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh jahannama ayaa la keenayaa oo siraadka korkiisa la saaraa kalaabiib ayaa ku xiran buu dhahay nebiga waa birkawaaneed oo midla shawki sacdaan qodaxda sacdaanka oo kale ah ma aragteen shawku sacdaan buu asxaabtiisa weydiiyey qodaxda sacdaanka ee magaalada madiina ka baxda haabay yiraahdeen saasoo kala waaye laakiin cidmigeeda iyo weynaanteeda ilaahay maahana cid kale ma oga subxaanahu wa tacaala anaa ugu horeeya buu dhahay nebiga axad gudbaa marka rasuulku uu gudba salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ayuu yidhi ummadaha ayaa marka soo gudbaaya aniga siraadka korkiisa ayaan ku suganahay markaasaan leeyahay ilaahayow addoommada soo badbaadi ilaahayow soo nabadgeli ninka ugu horeeya wuxuu u gudbayaa sida biriqa oo kale ama hilaaca saasoo kale dadka qobolka mida u gudbaayaan waa dadka cibaadada iyo diinka ku dadaalay oo amarka ilaahay xoog u qaatay subxaanahu wa tacaala midka ku xiga wuxuu u soo gudbayaa sida dabayl oo kale waxaa loo soo gudbayaa qof baa qadar acmaalihii sida uu markaa la eg yahay qofaa sida faraskoo kale u soo gudbaaya qofaa qof ordaaya oo kale u soo gudbaaya ilaa markii dambe la gaaro qof soo gurguuranaya buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh fa makhduushun wanaaj marna birta way qabanaysaa waa xaganaysaa waa ka soo fakanaa waa xaganaysaa waa ka soo fakanaa ilaa marka dambe uu bannaanka u soo baxo nin baa soo socda haddana cabbaar markuu bartamihii gaaray hoosna uu ka soo tegay meesha ugu dambaysana uusan soo gaarin ayaa camalkiisii dhammaaday meesha ayaa looga tegayaa buu dhahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh darku markay sidaa dhacdo arrintaa la soo gudbo rasuulku waxaa la amrayaa ummaddiisa inuu darka ka cabsiiyo webiga kawthar ayaa laga cabayaa biyo aad iyo aad u macaan waaye qofkii cabaas mar kale oomi maayo sidaa darteed ummaddiisa markay isugu timaada meesha oo la cabsiinaayo ayaa waxaa dhacaysa koox in meesha laga raacdeeyo kooxdaasi ummaddeeday ka mid yihiin buu leeyahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh gadaasha ayay diinka ku cayaareen ayaa loo dhahayaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh aniguna waxaan dhahayaa buu dhahay fasuxqan liasxaabi saciir dheereen ayaa u sugnaatay qolada asxaabu saciir dheereen ayaa u sugnaatay iyo halaag haddaba dadka marka xaaladoodu ay sidaa noqoto oo xalka ay meesha la gaaro ayaa marka dambe ummadda waxaa loogu wacayaa in la kala miisaamo miisaan ayaa jira yowma alqiyaama miisaanka ilaah wuxuu ku magacaabay subxaanahu wa tacaala ama uu ku tilmaamay kitaabka munasalka ah ilaah wuxuu yidhi faidaa nufiqa fi suur buunka haddii la yeeriyo falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun nasab sheegasho reer hebelaan ahaa ma jirta buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala walaa yatasaa'aluun والاسميزاما فمن ثقلت موازينه قفك موازين حسناتك أي عصلاته فأولئك هم المفلحون
waman khafat mawaaziinuhu ninka ay qafiif noqoto miisaankiisa xasanaadka ah fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun waa dadka naftooda khasaariyey buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala jahannamayna ku waari doonaan إلى آية كله وحكير فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية قف على لقفك ميزان كيس حسنات كأو عصلاده وحكسك معنا نلال راضية وأما من خفت موازينه ميزان كيس حسنات كقفك وقفيفه وناقي سيراضه حمانتي سؤي بضته فأمه هاوية ماشا أضم ما يؤذى يوانار تهاوية ليرهذو وما أدراك ما هي نار حامية بوضاي إلى سبحانه وتعالى ونار آدية أكل البضن وآدية أضرم بيري إلى سبحانه وتعالى هذا ميزانك أياجرة قف والبا ولا ميزامية ني والبا ميزانك أجا حسناتك وحي وكون نقول لها زيادسو طاعة إلهي كد ذال حق الرب كسع سبحانه وتعالى markuu umada sida loo miisaamo waxa la qaybina kutubihi qof walba meeshu nasiib ka yeesha laga siina umadu labay u kala qaybsamayaan qola kitaabkooda gacanta midigta laga siina qolana gacanta bidixda ah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi qof alla qofka kitaabkiisa gacanta midigta laga siiyo fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah كاليا كتابكيغا إلى أقريو ليهي ومدو سودح قلا فرحت يا سرور أيا كدح سغن ها مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وأن لينا حساب كان وناكسن إن الله كل مايو طاعة ألان كد ذالي دينك ألان كد ذالي قيامها أديار قروبي إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية نرى رالي وقيمة بضنبو كجرابو راي إلى سبحانه وتعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية جنوين سرسريس أيا لقلنا قطوفها دانية ومره إيدويهم براي إلى سبحانه وتعالى محال لها مركا كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية مالمه تجي أدونك وحد صو عمل قبتين وايه عنا وعب وكل حيستبوا إلهي ليه سبحانه وتعالى قال الله وقال الله كتاب كذا جعنت ملك تعالى قسيه يا صهري قالك لا أدبات إشقني ما كل عذي نصيب حمو وأما من أوتي كتابه بشماله إلهي آيات كالو حكير وأما من أوتي كتابه وراء ظهره نبرك قداشي صلى قسيه واسكميد قعنت بدحدا ايا وحا لغو دجينا دبرka gadaashiisa gacanta bidixdana waa laga siiyay dhabarka gadaashiisana marka waa laga siiyay marka laga siiyay kitaabkiisa gacanta bidixda muxuu leeyahay fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya halaageeyo maxa kitaabka leeysiiyay ولم أدري ما حسابيه محل إيوغيسي حساب كان وحا أويهي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ومرك ملائكة الأمر إني قبطان ويقولك كجيدان أو سلسلة در كذا تضبات دون أويهي أو دون كملقاء أفك إني كجليان قضال أغسوا بحيان أيو إلهي أمر يا سبحانه وتعالى marka waraa dhahri laga siiyo muxuu leeyahay ila wuxuu dhaay fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira halak ayu uwana naarta sa'irana waa gala naarta sa'ira ayu gali doona qofka xaaladiisu ay sida noqoto hadaba dadka markii xaaladoodu sida noqoto oo kutubaha loo kala qaybiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu kala tilmaamay dadku sida marka loo kala quminayo oo nin walba jannada iyo naarta marka loo gelinayo كافرين تأيو إلهي كبلابي سبحانه وتعالى إلهي وحوير سبحانه وتعالى أساقو كافرين تعبر كبحنايو إيهابك عذابك مركا لوق لينايو وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وحلقوا منا أولوذا كوبي كافرين تأها أو ربي قد كفريي لنك جهنم أي لوذا بطاي إلى سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها إلا ميشا إيكتغان ولبكحين تاي قميتان كان لوذايو وكحين دليل إقباط إيكجر تسانصوت الماني أيا لوذا إلا لقجي الباب كجهنم أفكي ضبطي إلى سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها
markii ay tagaan ka bacdi futixat abwaabuha markaasaa irdaheeda loo furfura inta kale waa xiran tahay waayo kuleelkii iyo dhibaatadii ayaa la rabaa inay ku dhex sugnaadaan oo si xun kuleelku uu u galo oo hawaba ayba markaa gelin markay tagaan ayaa la furfuraa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala xataa idaa jaa'uuhaa futixat abwaabuha waxaa la yaabaya malaa'igtii kayd hayayaalka ahaa oo maamulaya cadaabka kuwaasaa waxay leeyihiin waqaala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluuna calaykum aayaati rabbikum wayundiruunakum liqaa'a yawmikum haada war maxaa dhacay meeshaan maxaad u soo marteen maanta jidkan maxaa idin soo qaadsiiyey rusul idinkaga digta ma idin imaanin miyaa rusul idinku akhrisa aayadaha ilaah korkiina ma idin imaanin miyaa cadaabka iska ilaaliya rusul idin dhahda ma arkin miyaa kutub ilaah idin soo dejiyo cadaabkan idinkaga digaay ma idin imaanin miyaa meeshaan maa meel la yimaado ah waddadan maxaad u soo qaadeen wayundiruunakum liqaa'a yawmikum haada maxay ku jawaabayaan qaaluu balaa haabay leeyihiin walaakin xaqat kalimatu alcadaabi cala alkaafiriin ilaahay kelimadiisoo cadaabka ah ayaa kaafiriinta ku dhex sugnaatay is-inkirid ma jirto maxaa loo leeyahay qiila dkhuluu abwaaba jahannama gala albaabaha jahannama khaalidiina fiiha waad ku dhex waaraysaan fa bi'sa mahwa almutakabbiriin kuwa isqaadqaadka badan ee kibirka badanoo ilaahay diinkiisii diiday meel ay ku sugnaadaan ayaa baas lehe dhaalimiinta saasaa loo xukminaa ama loo kaxaynaa waa dadka kitaabkooda gacanta bidixda ah markaa laga siiyeye qolooyinka gacanta midigtaa laga siiyey fiiri ayakuna wasiiqa aladiina taqaw rabbahum ila aljannati zumara ayagana ayagoo koox kooxa ayaa la quminaa buu dhahay ilaah oo la kaxaynaa oo la wadaa xataa idaa jaa'uuhaa ilaa jannada ay ka tagaan wa futixat abwaabuha waxaal futixat abwaabuha albaabaheedii loo sii furfuray buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala loo diyaariyey ma'wadkii meeshay geli lahaayeenaa janno ah waa loo sii burunteeyey وقال لهم خزنتها ملائكتي كيد هايالك أها وحيليهين سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين نبتقل يكركينا أهاتو طيب أياد نقطين عملكينا طيب نقضي واحد سميسين أيا طيب نقضي قلوات كواري سامبالو ليه هيبو إلى سبحانه وتعالى أيقو مركم حيليهن وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده إلهي أيام حدث كلب اللنقات كيسي نور رميي وأورثنا الأرض نلكينا دحرسيي نلكا ونلكا جنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء أنقو ميشان دونك دقينا فنعم أجر العاملين عاملين تأجر كوذا أيا نعم الله بوضعي إلى سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أصحاب الجنة ما أنت شغل أي كسجيهين شغل كتعب يرفاتك أدونك وكلام أها لكن وشغل وحند إيو وحبيد إيو تمتع إيو راح مركاء إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أيها إيا دمر كوذا حور العين تأحبا وحي كل حسوغيهم بوداي إله ظلال إيا هوصص صريرا واوين ودهب يقيم كسميسان أين كد كينايان هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون وح الله لوحي أي وعظان إي وحي اشتهيان إي فاكهات بلان أيام ميشا كجرة سلام قولا من رب الرحيم سلام إي التهنية أي أغا إيمانيسو إلى حقس سبحانه وتعالى هذا وددك مسلمين تحالد ولا سداء أما ظالمين إيا كافرين إلى محير وامتازوا اليوم أيها المجرمون دنبيلياشي ومانت الصعمة ودنا عبيد إحدى مركا أبحا مركا الصعاء إله الله الله وحليه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وربني آدم ومكلب الله منه أنو إلهاقي بلن ماكو سينين ميا ماكو نهن ميا اسكا إلال شيطانك ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين عدو عد أيو إذيهي وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
saas ma ku dhihin miyaa buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walaqad adalla minkum jibillan kaiir afalam takunuu tacqiluun shaydaanku wuxuu dhumiyey makhluuq iyo jibil fara badan ee kuwa caqli qaadanaya ma tihiin miyaa markay qirtaan ayaa farta loogu fiiqayaa haadihi jahannamu allatii kuntum tuucaduun midaan ma u jeedaan waa jahannamadii laydiin yaboohayey islawha alyawm bima kuntum takfuruun gala maanta kufrigii aad kufriseen sababtiisa ku gala buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala insaankii meeshaasuu taagan yahay shaydaankii baadiyayaa meesha taagan way murmaayaan insaanku wuxuu leeyahay ilaahayow kalaa i dhumiyey aniga ilaahayow camal fiican waa iska qabsan lahaa ilaahayow daacadaadaan ku dadaali lahaa shaydaankaana i dhumiyey shaydaanku wuxuu leeyahay rabbanaa maa adaqaytuhu ilaahow anigu ma dhuminin walaakin kaana fii dalaalin baciid laakiin asagaa dhumid dheer ku jiray asagaa baadicad ku jiray oo weliba fog ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laa takhtasimuu ladaya waqad qaddamtu ilaykum bilwaciid labadiinaba hortayda ha ku doodina horay ayaan goodi idinkugu soo hormariyey ballan iyo wacdi horaan idinkugu soo sheegay maa yubaddalu alqawlu ladaya qowl agtayda ahaaday la bedeli maayo wamaa ana bidallaamin lilcabiid aniga addoommada ma dulmiyo ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala وقرمي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وما لجهنم أنكو دهي نبو دهي مبحسنتي مخلوق انت لغو الشبه ولغو بوحيو إلهي ليه هل امتلأت جهنمي مبحسنتي